beesha Dagoodiye waxay ku abtirsataa Garjante Gardheere Samaale oo ah wiil uu dhalay odagii Samaale ahaa oo inta badan Soomaalidu ay ka soo askuntay. Beesha Dagoodiye waxay u kala baxdaa sidan: Fardaanow, Midimaal, Geelible, Samatar, Jibraa'iil, Macow, Idris, Raqay, Abrishe, Fay iyo kuwa kaleete. Haddii aanu si gaar ah u fiirino kuwa la isku yiraahdo Mataan waxaa la isku yiraahdaa ilmo reer Maxamuud oo ka kooban 12 wiil, Macow iyo Samatar. Ilmaha reer Maxamuud ee 12 ah waxa ay kala yihiin Yuusuf Maxamuud, Xasan Maxamuud, Cali Maxamuud, Cusmaan Maxamuud, Cumar Maxamuud, Axmed Maxamuud, Aadan Maxamuud, Gaafo Maxamuud, Faarax Maxamuud, Maxamed Maxamuud, Cisley ama Nuur Maxamuud, Mici ama Xuseen Maxamuud. Intaas waxaa la isku yiraahdaa ilmo reer Maxamuud. Beesha waxa ay degaan wadamada kala ah Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya. Waxa ayna ku leeyihiin kuraas siyaasadeed, sidoo kalena waxa ay ka qayb qaateen horumarada saddexdaasi wadan. Haddaynu si gaar ah u fiirino wadanka Kenya waxa ay ka degan yihiin Wajeer, ayagoo sidoo kalena qaybo ka mid ah ismaamul goboleedka Mandheera dega. Waxa ay ku jiraan siyaasadda dowladda dhexe iyo midda dowladda gobolka. Waxa ayna ku leeyihiin saameyn guud gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya. Sidoo kale waxa ay kuraas ku leeyihiin wadanka Itoobiya iyo wadanka Soomaaliya, ayagoo wasiiro xildhibaano ka kala tirsan labadaasi dowladood ku leh wadamadaasi. Qaar ka mid ah taariikhyahanada ayaa waxa ay sheegaan beesha Dagoodiye in qarnigii 19aad dabayaaqadiisii loogu yimaaday dhulka la dhihi jiray Daawa, ayagoo la sheegay inay ka soo guureen Soomaaliya, gaar ahaan Ceel Cali. Waxaa sidoo kaleeta la sheegay qoomiyadda markii ay halkaasi imaanaysay inay ahaayeen dad u badan reer miyi, kana soo kala hayaameen qaybo badan oo ka mid ah dhulka Soomaaliya, iskuna faafiyey wadamada Itoobiya iyo Kenya. Waa sida uu buuggiisa ku qoray qoraaga caanka ah ee la yiraahdo Arthur Delson Smith, oo ka mid ahaa dadkii u soo safray Geeska Afrika dabayaaqadii qarnigii 19aad. Sida buuggaasi uu ku sheegay qoraagaas, Dagoodiye waxa ay ka mid ahaayeen beelaha yar ee ka mid ah beelweynta Soomaaliyeed ee lahaa hoggaan iyo kala dambeyn. Beesha sida uu sheegay qoraagan waxa ay lahaayeen maamul u dhisan sida boqortooyada oo uu u weyn yahay wabar. Waxaana sidoo kaleeta beesha ay lahayd cuqaal ama waxa la yiraahdo guurti oo ahaa kuwa go'aanka u gaara beesha, sidoo kalena ka tashta waxyaabaha beesha markaasi saameynaya. Guurtida ayaa sida buugga uu ku sheegay qoraagan waxa ay ka koobnaayeen 100, halka sidoo kaleeta wabarka uu lahaa 15 la taliye oo uu kala tashta arrimaha markaasi soo wajaha beesha. Buugga ayaa waxa uu soo koobayaa 12 ka mid ah wabaradii beesha soo maray, waxaana ka mid ah wabar Cudow, wabar Aamin, wabar Cali, wabar Cumar, wabar Caalin, wabar Cabdi, wabar Cumar, wabar Cali, wabar Xasan, wabar Cusmaan, wabar Cabdi iyo wabar Cabdille. Waxa uu sidoo kale sheegay in maamuuska wabarnimo la iska dhaxlo. Beesha waxaa ka mid ah waxyaabaha lagu xasuusto qaybaha ka tirsan beeshan Dagoodiye ee dega wadanka Kenya ayaa sanadii 1984 waxaa loo geystay xasuuq kaasi oo ay ka dambeysay dowladda Kenya, waxaana la sheegaa in xasuuqaasi ay ku dhinteen in ka badan 5,000 oo ka tirsan wiilasha beesha Dagoodiye. Xasuuqaasi ayaa waxa uu bilowday subaxnimadii bishii Febraayo 10keedii 1984. ilaa hadda si cad looma haya waxa ay u cuskatay dowladda Kenya in ay xasuuqdo dadkii iyada ku hoos noolaa. Dhanka kale, qaybta kale ee ka midka ah beesha ee degta wadanka Soomaaliya ayaa iyaguna waxaa la sheegaa inay ka qayb ahaayeen dadyoogii u soo dagaalamay xurnimadii dalka Soomaaliya. Waxa ayna sidoo kaleeta ka soo qayb qaateen dowladihii isaga kala dambeeyay dalka Soomaaliya xurnimadii kadib. Maantana waxa ay ka tirsan yihiin maamulada kala ah Hirshabeelle, Jubbaland iyo sidoo kaleeta Galmudug, ayagoo kaalin muuqatana ku leh dowladda federaalka ah. Daawadayaal, intaa waxaynu ku soo koobaynaa barnaamijkii koobnaa aynu uga hadlaynay beesha Dagoodiye. Tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale, waa anigoo inkaga tegaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.